جنرال xogaha media waa jannal taagan taariikhda inuu kaaga sheekeeyo wax walba oo maskaxda ku dhisi karo barashada taariikhda waa nolol dhameystiran fadlan subscribe saar oo ku taxnow jannalka xogaha media una sii sheegare asxaabtaada nin dhalinyaro ah ayaa hadda ka hor aad ugu dadaalay marsidii uu la kulmi lahaa filosofi Greek ee Socrates baadigoob uu galay dabadeed waa ay kulmeen ninkii yara iyo mudane Socrates gal dheer oo su'aalaha ayuu ku dul akhriyay ninkii dhalinyarada ahaa su'aashii ugu muhiimsanayd ee uu weydiiyay waxa ay ahayd sirta guusha waxa uu ugu laabqaboojiyay mudane Socrates daayirkii guusha baadigoobku ugu jiray waxa uu ku balamiyay meel webi ah si uu jawaab ugu helo su'aashaas miisaanka culus ee uu wiilka yarmiiska soo saaray geed had wanaagsan leh webiga kaabiga ku haya ayuu hoos daayirkii guusha baadigoobku ugu jiray waqtigii ballantana waa uu ka soo hormaray waxa uu diyaar u yahay duruus la xiriirta guusha daayiro ina keenan webiga wada galne ayuu Socrates suurdada kaga kiciyay inankii yara ay mudane iyo tilaabtiisuba waxba uma dhaxayn ay maxad dareemaysaa daayiro mudane Socrates ayaa sidaa weydiiyay mudane biyaha oo ina jiidanaya ayaan arkayaa ayuu ugu jawaabay inankii haddaba indhaha xid oo gacmaha xagga dambe mari daayiro markiiba Socrates xoogiisa oo idil ayuu isugu geeyay daayirkii oo xagga hoose ee webiga ayuu u hoosiyay oo in muddo ah ku hayay iska caabin iyo hardan uu galay daayirkii waxba kuma kordhin ilaa uu qoys ka gaaray nolosha daayirkii oo naftu ku yartahay ayuu dibadda u soo saaray Socrates mudane iyo hadallo kale oo neef badani gadaal ka riixaysay ayuu isdaba yiri miskiinkii yaraa ee dhimashada ka badbaaday aamus ay ii sheeg waxa aad ugu baahi badnayd goortii aad ku hoos jirtay biyaha ayuu weydiiyay mudane Socrates hawo ayaan ugu baahi badnaa ayuu ku jawaabay daayirkii haddaba sirta guusha waa sida markii aad guusha u raadis sida aad u raadisay neefsashada marka ayaad guuleysanaysaa sirtuna waa taas sida dabka yari uusan kuleyl badani u lahayn sidaas la mid ah ay himada ama hanka yar u dhalin karin guul wax ku oola haddaba dulucda qisadani waxa ay tahay mar walba ku dadaal wixii aad rabto waad gaaraysaa guurba ha ka cuslaadeen haddii rabaan ogow bilaadankan wax walba oo dunidan yaala waa u karaa waxaan ka ahayn inuu qof abuuro adigu ma ahan inaad mar walba isdhiibto oo aad daciif ka dhigto guuleysto walba oo aragna waxa uu soo maray rafaad fara badan iyo dhibaatooyin uu noloshiisa kula soo dagaalay waxa jira maalqabeyn Chinese ama Chinese oo dadka inta badan dadka ay yaqaanaan oo aad caan waxa uu yiri 30 jeer muddo ka badan ayaan ka dhacay tartankii loogu jiray in boolis aan noqdo maanta intana boolis haduu noqon lahaa ma uusan gaarin guul walba oo uu rabo laakiin waxa uu ku guuleystay kadib markii uu fikradii asaga ku jirtay ee gubaysay uu kamera dhaliyay ogow hanka yari hibo iyo himilo laguma gaaro dadaal oo ka sii badi dadaalkaaga waad guuleysanaysaa insha Allah di aynu nahay muslim mithaalka ugu wanaagsan ee sanna waa nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam dacwada waxa uu ka bilaabay meel hoos oo aysan cidna ku garab taagnayn waxaan ka ahayn xaaskiisa Khadija laakiin maanta waxa raacsan nabiga alayhi salatu wasalaam kala bar inta ku nool maanta dunidan nabiga ilaahay subhanahu wa ta'ala waa uu karay in uu ku saacido ama uu ku kaalmeeyo awood uu dadka dhan hal mar ugu yeeri karo laakiin waxa lagu imtixaamay nabiga alayhi salatu wasalaam inuu sabar muujiyo oo uu u sabro bartana dadka dabeecadahooda nabiga alayhi salatu wasalaam waa loo dakhray diintan waa uu rafaaday wadada qodxa loogu daadiyay wax walba lagu yiri sharaftiisa lagu caayay qof ilaadina wax walba oo uu dhibsado ayaa nabiga alayhi salatu wasalaam lagu yiri haddana taas kama aysan joojinin in uu faafiyo dacwadii ilaahay subhanahu wa ta'ala ayslihin nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam nabi buu ahaa awoodo ilaahay ku kabay baa jira sax waa jireen laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala ma uusan dhiin iska fariiso ana dacwada dadka gaarsiinayay dadaal mar walba waad gaaraysaa misaal fiican ayaad haysataa ogow nabiga alayhi salatu wasalaam waxa uu ahaa qof adiga la mid ah inkastoo uu naga khayr badnaa naga sharaf badnaa naga karaamo badnaa haddana waxaan ugu tusinayay inaan mar walba dadaalno oo aan gaarno hamiga aan leenahay Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ku dhiira wanaaga sameyntiisa ka baqaylin walaalahaada kale inaad u sii gudbiso oo la wadaagto fadlan subscribe sar channelkeena mahadsanid walaal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh